saxaabadii diinta haysay bidhbidhka noloshu ma niyad jabinin maalan dagaaladii ugu waaweynaaye saxaabadu gashay waxaa ka mid ah xarbi alqaadisiya ciraaq meeshan la yidhaahday ku taalla ciraaq waxaa inteeda badan haystay bershiya dowladdii iiraan baa ka talin jirtay dee caasimadoodii madaa'in waa baqdaad dhinaceeda kama foga maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaas iiraanta ee majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen dagaaladii ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dagaalka qaadisiya 200 kun oo gaala iyo 30 kun oo saxaaba ah is hortaagan iyo intii la socotaya saxaabada waxaa hogaaminaya 10 المبشرين كامدة سعد بن أبي وقاص بعيدا كوطة قلنا كلنا واحد هجامين إن الرستم لا يرادو جانا ندودي وويناي لقدم بيه كامدة مركان الرستم حر باب اللي ما كان منتل يستدي يفكر يعني إنه وجاده وحسعد ويديستي إنه الصادرة عد وده هذا البلو الأحمر نبى الله دري وسوء عليه متكلا بلي صادر والله صدق نبى كل بمدو تجي dhaqaale bixiyo marka sariirtii boqortooyada meel la dhigay dabeetana red carpetiska ayaa la waday dhulaadu ballaaran ninkan muslimiinta ka socda fars yaro gaaban buu wata waa intaasoo bilood dagaal ku soo jiray dee ay ka muuqato adduun iyo dhaldhalaalkii maaha rabi'i ibn amr fars yaro gaaban wata soo baxay dabeetana markuu soo gaadhay meeshoodii buu iska soo dul eriyay faraskiisii kama degin waxay culimada taariikh sheegaan barkimooyinkii meesha teedsanaa mid ka mid u faraska ku xidha dabeetana uu ka soo dhaadhaco xaguu soo dhaca waxay yidhaahdeen boqorka saan looguma tago hubka dhig boqorka adoo hubsita looma tago wuxuu yidhi boqorku isaga ii yeedhay anigu umaan rabine haddaan rabtaana sidaydan baan ugu tegayaa haddaydan rabinna waa iska noqonaya boqorkii waa loo sheego waxaa la yidhi rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinkaa ii yeedhay ama maca hubkaygaan gelaya ama waa iska noqonaya soo daaya buu ku yidhi maca hubkiisa soo daaya isagoo wixiisii situu soo galay su-aala baa la weydiiyey markaa maa jaa bikum war maxaa idin keenay abaar iyo gaajo iyo dhib iyo balaaya ka soo maxaa idin keenay saxaari uga timaadeen wuxuu ugu jawaabay الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إلهي بأن سوابحيي إن نكسر ردتك عدي ودونه الضومة هيس الضون سنة يانو إلهي الضومة ودقنا وحنوسع عن أبو لين البنادم كحرينه مخلوق خلينا والضون سنة إلهي يقول إن يدتك الضومة والنقضان ودتك حرية هلان بانو سعنا بولي عبادة إلهي قاركو نغط وحنو كلاو سعنا بولي إنا نددك دونيدا عريري قادة كسار رب اللي عيدا وصار هذا وان كان كاربتي يضع عص دكتايا عرشي قوين كفر ديا أيوه حكولة يا عريري كاسار يا عريري هو قلبي كان دونكو قيمة ولا ما فرديا وين كاربتي يدني وحن كانوا كفر ديا وين قيمة وصمينش waxaa kala fiican cadaaladda iyo maaragtay tawxiidkiisa iyo diintiisa iyo waxa istaa kala fiican marka wuxuu leeyahay adduunka waa dhib baad ku qabtaaye cidhiidhigana adduun baan kaa bixinayaa waxaan kuu saarayaa maxay ballaca adduunkaan ku geynayaa buu leeyahay waxaan kaloo socdaa buu yidhi diimaha dulmigooda inaan kaa kaxayno islaamka cadaaladdiisa kuu saaro nabiga calayhi salaatu wasalaam dagaalkii badar markuu galay cabdiraxmaan ibnu cawf baa wuxuu leeyahay dagaalkii badaroo soconaya oo laba yaryare ay hareeraha kaga jiraan oo dee uu cabsanayo isleeyahay labadan inaan waaba dhalinyare male waaba la dili doona rag waaweyn oo xoogan malaa'igtaada ma joogaan ayuu kii koowaad gacanta qabto wuxuu yidhi adeer ninka nebiga looga taag waayey baan rabaaye abujahl waa kee buu yidhi wuxuu yidhi abujahl maxaad ku falaysaa waxaan rabaa maanta midka haya inuu aakhiro qabta buu yidhi abujahl oo awr leeg buu yidhi halkaa ka muuqdoo dagaalamayaan ku yidhi buu yidhi waa kaa intaan kan tilmaamaya mid kale dhinacay igu dhegay buu yidhi markaasuu yidhi adeer abujahl waa kee markaasaan ku yidhi buu yidhi oo maxaad ku falaysaa waxaan maqlay buu yidhi nebi maxamed baa looga taag waayay calayhi salaatu wasalaam intuu magaalada maka joogay
maanta midkaaya inuu aakhiro qabtaaba raadin waa dhallinyaro ansaara ibnay cafraa waa laba ninoo dhallinyaro ansaara abijahalma ma yaqaanin manay arag laakiin waxay cadho u qabaan nimankii nebi maxamed maka ka soo saaray bay ka cadhaysan yihin dabeetana wuxuu leeyahay maantaa fursadii timi abijahalna joogaaye waxaan rabaa ninka abijahal laydhahay ninkan uu cadhaysay xataa bidhaantiisa garan maayo markaa wuxuu leeyahay dadka iga dhex tilmaama abujahal kuu yahay labadiina buu yidhi sida gorgorka intay u haadeen ayaan arkay buu yidhi iyagoo seefta abujahalba ku boobay dhulkay ugu tuureen dabeetana waa soo noqdeen nebigay u yimaadeen mid waliba isagoo le anaa dilay ilaahay rasuulkiisiiyow ninkii waan soo dilay seeftiinna miyaa maydheen buu ku yidhi may bali tusa buu yidhi seeftiiyoo dhiiggala bay tuseen dabeetana wuxuu ku yidhi keelaa ku maqan labadiinnuba waa disheen dhiiggani waa kii abijahal buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam labadiinnuba abijahal waa disheen waxaa jira maraykanka wiil dhallinyaro oo jief la ydhaahdo jief waa inankii ugu yaraa ee mastered qaata da'dii ugu yaray ee shahaadada maastara qaadata ee weliba ku qaata imtiyaaz iyo sharaf jief maalintuu qalinjabinayay baa la damcay in la maamuuso waddanku uu maamuuso oo la tilmaamay inuu yahay nin yar oo shaqo weyn qabtay oo da'dan uu ku qaatay maasterku aan horeba loo arag cid ku qaadata da'datan habeenkii xafladiisii ee qabcadii yarayd madaxa loogu soo xidhay ee maryihii lagu qalinjabin jiray loo xidhay ee shahaadada loo dhiibayey buu ooyey dabeetana mudiirkii diinkii jaamacadda wuxuu yidhi waxaan rajaynayaa min shiddati alfarax inaad la ooyeyso farax daraaddeed maanta caawa farxadda ku haysa daraaddeed baa ilmada kaa keentay wiilkii jief la odhan jiray waa wuxuu idhi igamay keenine min farati sacaadatii buu yidhi min farati tacaasati shaqinimadayda iyo taciisnimada liidashadayda iyo noloshan aan ka rajo dhigay ayaa iga keenay buu yidhi oohinta waxaan moodayey markaan shahaadaadkan sare iyo waxaan xaqiijiyo inaan farxi doono oo qof nolosha wuxuu ku farxay gaadhay aan noqon doono laakiin ma aha buu leeya waxaan ka sii qaaday uun warwar iyo qalaq iyo diraab nafsigaan ka sii qaaday wax macno ay ii samaynaysaana ma jirto iyadoo xafladdii la wadu hore isaga tegay wuxuu go-aansaday inuu bridgeka dheer ee maraykanku iska daadiyo inuu iska tuuro america waxaa ku yaalla bridge la yidhaha golden gate waa meelaha ugu waaweyn ay ku faanaan maraykanku buu ka mid yahay laakiin nasiib darra waa meelaha ugu badan ee qofka doonaya inuu istilaa uu ka soo boodo xalay markaan soo socday waddankiina halkan port elizabeth iyo u dhaxaysa cape town baa waxaa lay tusayay dooxa ku taalla oo valley niger magacaynkaasi oo kale leh oo booraan laga boodaa wixii isdilayaa tagaa laygu yidhi kiinana golden gate waa sidoo kale waa bridge weyn oo maraykanka caan ku ah laakiin dadku wuxuu u adeegsadaa intuu fuulo inuu ka boodo dabeetana u dhinto jief uu socday si uu golden gatekii uga soo boodo isagoo kusii socda meeshii ayuu meesha agteeda wuxuu ka arkay niman aan dadka u mariya ekayn oo ka gedisan oo iska farfaraxsan oo meelo fadhiya oo dhallinyaraha qoladii buu u yimi wuxuu ku yidhi su-aal maydin weydiin karaa fadal bay idhahdeen ha maxaa ahaydeen buu yidhi idinku waa niman dhallinyaraha oo muslimiin oo arday ah waxay idhahdeen waxaanu nahay dad muslimiin oo caynkaasoo jaamacadda dhigta waa kaasoo waxaana si aan ula faraxsantiin idinku waa maxay buu yidhi way soo kaxeen waxay idhahdeen inakeen gurigoodii bay geeyeen gurigii uu yimi waxaa arkay guri yar oo cidhiidhiyo wax badaniba oolin oo dadka masaakiina gurigooda wuxuu garan waayey dadka noloshana gurigan kaga nool intanna leeg ee haddana faraxsan ee noloshu baanay dhifta ku haynin maxaa rumaysantiin buu markaa weydiiyey waxay u sharxeen islaamnimada iyo waxay tahay iyo iyagu waxay rumaysan yihiin wuu islaamay dilkiina wuu iska dahayay waxaanu la baxay jacfar min daaciyaha maxaa keenay dadkan inay nolosha ka qubsaan
xataa soomaalidii u tagtay galbeedka ee dacfi iimaanigii uu ku dhacay siday u fakerayeen maadiyaad ka bataa iminka ugu istil badan iyaguna soomaalida marka la eego magaalooyin baa la helayaa soomaali dhowr iyo 10 qof ay marayaan dadka istilay mid tareen isu dhiga iyo mid daarka boodaba waxa isweydiinta le wuxuu yahay dhulkii ladnaa markuu dadku tagay inay badhaadhaan baa la eegayay maxaa keenay inay istilaan Colin Wilson in la yidhaahdo ustaad maraykana baa wuxuu yidhi isagoo New York sifaynaya غطاء جميل لحالة من السعاسة والشقاء والضبول في عمبو يري لكن ضبول قروح بدنه هوستي سهداد يكتبوا لي وحا كجرا وسعاسة وكذا يشق النما بوليه تعرف عند عدن وحبها يا جنب بوليه نيويورك يالا ذاتك شوغا وداد الشقاء بوليه ليه بهاي سطو شقيقينا وقفوا كرسي كدو الفرديان تلمامو فلسطين ومغشانيو urur xamaas la yiraahdo yuhuudda jihaad kula jiro iska dhaciyo dunida wixii bamyaalay lagu garaaciyo wali istifaaciya ururka ninka sameeyay ee hogaaminayay hagayay korso dul saaraa meel dhaqaaqdo jirkiisii ma jirin markuu wax akhrinayo waraaqda kitaabka quraanka oo akhrinaya inaanu dhalay u rogi jiray maalin bay waxay yiraahdaan inaan ku dhalay baa seexday ka gamay si uu rogaabu garan waayo kitaabkii uu akhrinay waraaqdiisa arabku isku dayay inuu ku rogo meel dhaqaaqda arab uu leeyahay maca dalik xoogga yuhuudeed buu hortaagan yahay dhakhtarkiisa yidhi aad baad u tamar darraysay waxaad u baahan tahay nasiino dabeetana wuxuu yidhi may masaajidka ha la geeyo ramadaan bay hedee waa caawa soo jeedayaaba waa cibaadaysanayaa soo jeeday isagoo kursiga lagu sidaa laga soo saaray masaajidka Israa'iil ka kursiga lagu siday inta uu adkaysan weyday markii masaajidka laga soo saaray ayaa faantanimada cirka maraynta loo soo diray gantaal lagu dhuftay yani ninkaasi hamu siday jidna intaasu ka yahay itaalkiisu waa carabka dhaqdhaqaaqaya aqligana uu qabaa laakiin isma oran muqcad baatay qof fadhiya baa taan waxba qaban karin isma lehe wuxuu taagayay inuu diintiisa iyo ummadiisa iyo dadkiisaba xoreeyo ummad dhan buu ahaa maxay hoggaan ruuxiya oo hogaaminaya xarakaad dhan oo jihaad iyo isdifaac iyo wax iska rabaya dawlad dhan oo dunida waaweyn ba u adkaysan karila ninkaasi aan waxba qaban karin ee kursiga lagu jiidayo ayay u adkaysan kari waayeen hamiga sare aan xagga gaalkana idinka tusiyo saynisyahanka maanta cilmiga fiisigiska dunida u caansan ee mulxidka ee kutubtan maanta caanka leh isna waa muqcid waa sida ninkaasi oo kale waa kursiga ugu sareeya Cambridge University kursigu Newton fadhiyi jiray waa ninkii fadhiyay dhawaan baa la siiyay taqaacud inuu ka fadhiisto waa Stephen Hawking waa nin Ingiriis ah oo isagoo 12 jir uu ku dhacay shalal oo jidhkoo dhami shalal qabo oo aan meelina dhaqaaqaynin codka mishiin baa ka soo saara وانا theoretical physics كدنيا وجو قيمها بدن لما أنت إلا تلمامه وأنا كان لما حي قضايات كان وجو تلمامه يعني ملهن مدوع عرك إلا شيء the black holes أركتيه دي سيء وحكو صابسن وأخوياهن كدنيا هو قامينية هذا الكمشين بقى صارة مل دقائق سامتشرو مو يصورنين ورمقعد بات يعني مالنا ونولينه هنكي سوحو قارسي أقويا هنك الدنيا ده هجامين هي علمك في سيكس كينو هالكاسر نقضه يسوق كرسي قال له جي ديو أو عرب كان كهضينا بهجة تانية كهضينا سو إذن قفكو هدو هن ليه هاي ولو جدكو حدحدين هاي وانو تشيرين هنكو مال سرو قارسيه حتى في الصومالي واحد مودا إنه دقن كالصومالي ودقن أذك نين صوماليين ما مالين حقوقي ونين بايلوت دولة الصومالية درتي أريزونا شوقي لما ترى ماشي وحلقو دقري بيولي وبايلوت نما لقو برانيو أيان كاتين يرو قبضي يينن سلاني يينن أيدا شيخي سطان من مادنا أنا جيني كالو صومالي ويان بيولو كافيقا يوحبا لقيب سيدا وكيب سنة marka inantii islaantan meesha jooga caday liitaan
maalintii dambe islaantii iyo dhowxay ku jiray buu yidhi kaale maxaa afkiina lagu yidhaahdaa bay igu tiri buu yidhi please waxaan idhi buu yidhi kuma jirto afkeegu please ma male waan fikiray buu yidhi wixii aan la odhanay min fadlaki bilixsaanaki waxaas waa carabi buu yidhi waan baadhay af soomaaligiiyo ereyga please ba waan waayey buu yidhi wax la yidhahdo boliskii way yaabeen hebel professor hebel oo caqligii faransaba ugu weynaa waxaa lala hadlay janankii booliska haystay wasiiru daakhiliya la gaadhsiiyey madaxweynahay tagtay giscard ayaa madaxweyne markaa ka ah yani iminka hogaaminaya dastuurka yurub ay qoranayso madaxdooda giscard baa waxaa la yidhi akbar filosof cindana ba haweentiisii xaaskiisii dilay maxaa la sameeyey waxay yidhahdeen caarun calaa faransa an tacqila caqlaha waa ceeb bay yidhaahdeen maanta faransis caqligii ugu weynaaye uu lahaa inuu xidho musixa caqliya ha la geeya baa layidhi meelaha dadka xanuunsanaya madaxa ka jiran lagu hayo ha la geeyo ninkan su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan muxuu u dilay wuxuu leeyahay nolosha tan baan hadaf lahayn filosofkan wuxuu leeyahay noloshan aan joogo hadaf ma leh whatsoever aan noqdo buu leeyahay wax kastoo aan qabto wax kastoo la sameeyo soo la dhiman maayo waxaan arkayaa buu leeyahay natiijo aanan dhaafi karin sida awgeed nolosha gebigeedu waa cabaf buu leeyahay waa cayaar nolosha gebigeeduba mar haddaan wax ka dambeeyaaba jirin wax kastoo aan noqdo mar haddaan kollayba dhimanayo waxaan sidhi buu yidhi kollayba haweentani de way dhimanaysaaye maantay faraxsantae iyadoo faraxsan dunida ha ka tagto iyadoo qoslaysuu dilay iyo kollayba way dhimanaysaa marka mala hadday joogtaa laxdaday ugu fiicnayde iyadoo faraxsan ha ka baxda dunida waxay leeyihiin dagaal lama galo bay leeyihiin aada og tahay inaad jabayso ciidanku haddii la yidhahdo dagaalka waynu gelaynaa laakiin waa layna jebinayaa ciidama dagaalamaysaa hadday xaqiiqa tahay in lagu jebinayo dagaalku macno kuma markaad rajo qabto ee inaad guulaysanaysa ama wax jebinayso dagaalku qiimo samaynaya wuxuu leeyahay nolosha tan haddiiba la dhimanayo maxay qiimo leedahay wax kastoo aan soo sameeyo soo ka tegi maayo therefore wuxuun baan dooran karaa buu leeyahay laxdada aan ugu farxad badanaya inaan ka baxo that's why maanta yurub qaanuunyahanadeedu xorriyaadka ku doodayaan waxaa ka mid ah xorriyada ah qofku naftiisa wakhtiga uu doono inuu ka takhallusi karo waa xorriya ragu doodayaan inaan dhinto markaan u baahdo wasaaradda caafimaadku bay leeyihiin qofkii u yimaado yidhaahda waxaan rabaa nolosha inaan ka tago waa inay aqbashaa inay nolosha dhaafiso waa tii loo dhistay nolosha laysku hayo oo dadka lagu xejiyo nolosha